قرحنا كبد بني. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهنا نحرسه وركبه جمي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت كل ما تي الله ونحرسته أنت كل وعنتينا الله أبوغديو أنت سوء أباب الشيء نجرتاسي قيامة أمداسي لجوه هلاجينا إلهي الشرط هذا أنت أمدها كأكي يجنا الله سبحانه وقرحي اسم دامنتها مصيبة أها كوحدة قوارشتا أي حالته usoo maleegeen maqaaxidii top cafe ee ku taallay degmada Boondere ee gobolka Banaadir. run ahaantii maqaaxidaasi horta waa maqaaxi dhalinyaradu ay iskugu imaadaan xalayna wayba ka sii xad jirtay oo dhalinyaradu waxay maqrib bay iska soo xaadiriyeen sidii ay u daawan lahaayeen ciyaarta finalka ee ay isku arkayeen England iyo Spain oo markaasi finalkii ugu dambeeyay ahayd. dhalinyaraduna waa iska garan kartaan oo ciyaaro iyo waxaasa laga raacay marka dhalinyaradu ciyaarahaas ay iskugu imaadeen. waan dul istaagi doonaa khasaaraha ka dhashay qaraxaasi kooxdu ay sheegatay ee halkaasi lala eegtay dhimashada iyo dhaawaca inta naga soo gaadhay xogtii hadda la xaqiijiyay ayaan qodobkeena koobaad ku dul istaagi doonaa. qodobkeena labaad xildhibaanada kulankoodii maanta ayaa lagaga hadlay qaraxyadan iyo weeraradan istawajooga 72 saac ee ugu dambeeyay ee ku soo noqonaya magaalada Muqdisho ee ka soo bilowday weerarkii saldhigga dhexe ee magaalada Muqdisho. waan dul istaagi doonaa iyadana baarlamaanku waxa ay ka dhaheen iyo sababaha ay u sababeeyeen in ay ka dambeeyaan weeraradan waxa weeye xarkaha goostay ee soo noqonaya ee moodaba waliba inay marka ka dambayso kooxdu ayba ku soo xoogaysanayaan qaraxyo laga nastay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay. waxaan dhinaca kale taa iyadana dul istaagi doonaa habacsanaanta dowladda ee la xidhiidha la dagaalanka khawaarijta ka hortaga dhagaraha khiyaamooyinka qaraxyada dilalka ay kooxdu u soo maleegayso shacabka Soomaaliyeed ee siyaasiyiin iyo shacab bay iskugu jira ku nool magaalada Muqdisho iyo waxa Muqdisho iyadu hoyga ay sababta ay hoyga ugu noqotay qaraxyadan iyo sidoo kale weeraradan iyo dilalkan joogtada ee gobolada kale iyo magaalooyinka kale caasimada Soomaaliya aysan ka dhacaynin. iyadana waan eegi doonaa. soo dhawaada muuqaalka like saar aragtidina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownay xalay qarax baa dhacay. qaraxaasi wuxuu ka dhacay maqaaxida top cafe oo ku taala degmada Boondere ee gobolka Banaadir. maqaaxi yaroo la isku imaado ciyaarahana laga fiirsado xilliyada samafaylka waxa weeye finalka dhalinyaradu ay iskugu imaato lagu caweeyo kafayga la iskaga cabo waxa weeye maqaaxi xataa siyaasiyiintu ay fadhiisata ma ahayna dhalinyaradu bas ay fadhiisato dadka bulshada caadiga ay fadhiisata ayay ahayd horta maqaaxidan markaa xalay xilli dhalinyaradu intay isku imaatay fiidkii intay tahay dhalinyaradii ugu badneed ay iskugu imaatay ciyaarta finalka la daawanayo ee England iyo Spain ay isku arkayeen la daawanayo ayaa gaadhi waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay baa la dhaxgeliyay. dhalinyaradii wax dhinta wax dhaawacma hal ilaahay waxa weeye wax qaar baxsado ilaahay uu ka bixiyo ayay noqdeen. meeshiina daakum bay noqotay oo wayba baabaaday iyadu way gubatay sababtoo meesha koronta ku jirtay korontadii baa isla sii qaraxday isla sii oloshay markuu qaraxoodii waxa weeye qaraxii u taabtay wuxuu gaadhay ba xataa guryihii u dhawaa gawaaridii banaankaas taadsanayd dadkii wadada marayay xataa ugu galaaftay oo waxa weeye dhimasho badan iyo dhaawac ayaa soo gaadhay. lama booliska iyagu 5 qof baa dhimatay bay dheen laakiin wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan inay 10 kor u dhaafayaan dadka halkaasi ku geeriyooday. dhaawacuna 30 iyo xoogaa qof waliba 30 iyo wax uu dhaawacu u yahay ayay dadka shacabka noo xaqiijiyeen. laakiin laamaha amnigu iyagu waxay sheegeen 20 inay dhaawactay 5 ay dhimatay. 5 kale ee anagu hadda aan ogaanay dadkii dhaawac ahaa ayaa geeriyooday baa la yidhi. isla xalayba 3 qof oo dhaawacnimo lagu qaaday ayaa isbitaalada ku geeriyootay. saakana waxaa la sheegayaa ilaa dhowr kale inay isbitaalka ku geeriyoodeen. si kastaba intii dhibatay Allah u naxariisto inta dhaawacantay Allah u boogadhayo
weerarkaasi waxaa sheegtay kooxda khawaarijta shabaab baa sheegteen waxay sheegeen in meeshaasi murtadiin ay joogeen ay ku laayeen raggii waxa weye naftahilaga gaadhiga geliyeyna ay shahiideen oo halkaasi ay kusoo shahiideen ay ku cibaadaysteen bay sheegeen dhalinyaradaas soomaaliyeed ilaahay baa inagu dhaariyay ciyaarta iska fiirsanaya waxa weeye meesha waxa weye dhibaato ka wadin meel aan ku qayilaynin khamri aan ku cabaynin waxa weye maandooriye qashin aan ku haysanin murtadiintay ahaayeen maxay yihiin waxyaabaha la yaab kale runaantii waa musiibada ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay waa arrin loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed inay ka dhiidhiyaan waa arrin loo baahan yahay in meel walba waxa weeye laga istaaga runaantii wax loo dulqaadan kara maaha dhiiggan daadanaya ee 10 loo dhammaanayo shacabka soomaaliyeed maxay waxa weeye isku raaci laayihiin war shacabku maxay gacmaha isku qabsan laayihiin war maxay wax oga baran laayihiin war maxaa waxa weye argagixisadan tirada yar la iskaga qaban laayahay war maxaa nimankan dhiiggeena ka ganacsanaya maatida iyo dhalinyarada laynaya maxaa ummadda soomaaliyeed ay ka fiirsanayaan war dhalinyarada soomaaliyeed miyaysan damiir lahayn war waxaan dhammaanaya 90% dhalinyaro waay waxaan la qarxinaya 90% dhalinyaro waay waxaan dagaalka loo gelinaya waxa weye laysku adeegsanaya 90% dhalinyaro waay war dhalinyarada soomaaliyeed sidan dan uma aha waxaa loo baahan yahay in la isku imaado la isweydiiyo war sida laguma jiri kare sida looga baxaa 5 bilood gudahood baa kooxda lagaga saari karaa guud ahaan dalka Soomaaliya 5 bilood gudahood baa lagu qaban karaa dhagar qabayaashaasi cali dheere uu koow ka yahay waxa weeye ummadda dhiigeeda ku daadinaysa magaalada Muqdisho 5 bilood gudaheed baa lagu baabiin karaa gabigoodaba oo cadaalad waxa weeye cadaaladda lagu horkeeni karaa war wax la dhowran kara runaantii maaha waayaan daro ummadda Soomaaliyeed usoo hoyatay waayaan daro ina waxa weeye maanta markay 20 dhibataba berina aan ka sabirno oo halkeeda haddana aan kasii wadno wax loo dulqaadan kara maaha ummadda Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay war sidan weliba gaar ahaan waxaan la hadlayay waa dadka Muqdisho degan war reer Muqdisho sidan darini maaha war fiiri baydhabo waxba kama dhacaan war Kismaayo waxba kama dhaco war Jawhar waxba kama dhaco war waxa weeye meesha la yiraahdo Dhuusamareeb waxba kama dhaco war Garowe waxba kama dhaco war Laascaanood waxba kama dhaco war Hargeysa waxba kama dhaco way Muqdisho 20 iyo 30 ay ugu dhamaanayaan way dhalinyarada Muqdisho iyo dadka siyaasiyiinta Muqdisho hal doorkii loo dhamaynayaa indhahana looga fiirsanaya waxaan leeyahay dadka Muqdisho deganow waad isgaranaysaan waxa aad dhamaynaysaan 95% waa dadkiini waa dadkii Muqdisho deganaa way waxa ku dhamaanaya 95% waa dadkii Muqdisho deganaa waxa qaraxa loo dhigayo 95% waa dadkii Muqdisho deganaa waxa la dhafoorinayo 95% waa dadkii Muqdisho deganaa waxa soo qaadaya ee soo maleegayana 99% waa dadkii Muqdisho deganaa waxaad ogsoonataan waxa la dabar jarayo ee dhamaanayo iyo waxa dhamaynayaba idinka Muqdisho degan inaad tihiin ceeb gaar inii aweeye boog gaar inii aweeye dhibaato gaar inii aweeye maantana magaalada Muqdisho guri aysan tacsi oolin oo bil ama 2 bilood gudahood baa tacsi ooleynin ma jiraan waxaan leeyahay war dib iskugu noqda oo bini aadamka sida ay u noolaadaan u noolaada oo bini aadamka sida ay u fikirayaan u fikira dadka aan la hadlayo way isgaranayaan laba reer weeye waxaan la hadlayo Muqdisho ugu badan laba reer weeye waa Abgaal iyo Habar Gadir toos baan u tilmaamaya war wax dhamaynaya waa idinka waxa la dhamaynayana waa idinke inta badane dib iskugu laabta iyadana ayaan leenahay baarlamaanku arrintaasi maanta kulankoodii waa kaga hadleen way ka tacsiyeeyeen si adag ayayna uga hadleen weeraradii 72 saacadood ee ugu dambeeyay dhacay oo qaraxii xalay uu ku jiro iyo weerarkii saldhigga dhexe ee magaalada Muqdisho waxa ayna sheegeen in arrintaasi ay u sababeeyeen inay jirto habacsanaan dowladda federaalka laamaha amniga gaabis ku imaaday la dagaalanka iyo ka hortagga weerarada iyo khawaarijta la dagaalankeeda isla markaana madaxdii dowladdu ay meel kale ku mashquulsan tahay madaxdii dowladda ayaa mar waliba waxa weeye madaxweynihii uu koow ka yahay safar uma loo sii socdaa waa la sii socdaa dalkii waa laga sii baxaya marka taas ayaa u sababeeyeen qaar ka mid ah baarlamaanku inay sabab u tahay kooxdan oo dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho dhowrkii bilood ee ugu dambeysay waa laga nastay weerarada qaraxyada kooxdani ay geysanaysay dhowr bilood ayaa laga nastay arrintaasi waxaana loo sababeeyay
la dagaalankii lagula dagaalamahayey banaanka kore lagula dagaalamahayay marka haddii la jabiyo dee janis u heli maayaan inay gawaari intaysu waxyaabo qarxa kasoo buuxiyaan ay caasimada lasoo hadaan janis uma helayaan marka taas baa laga gaabiyey waxaana loo sababeynaya marka madaxweynuhu inuu ku mashquulay dastuurkan samayntiisa dastuurkan cusub ee uu jaabka ku wato samayntiisa inuu ku mashquulay ayaa loo sababeynaya waynu eegi doonaa daawadayaal wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii ilaah yidhahdo